السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن ولا شيء قرب بدنيدي وانيغو ولا شاهني او كل مركله كسو دواو مقال عسوان waxaan rajaynayaa inaan caafimaad qabto sida aniga aan caafimaad u qabo alxamdulillaah allah ayaa mahad iska leh marka intaas ka gudbo maanta waxaan la isidaa sidaad ciwaanka ka soo aragteen wiilka iyo shukaansi maxaa kala haysto waxaa jiray wiil waxaana la oran jiray Mustafa wuxuu ahaa wiil waligiis aan gabar la hadlin waxaa jirtay inan uu hadda ka horay arkay inta uu muuqeeda la dhacay ayuu damac ka galay in uu shukaansado is-aragoodi koowaad waxay ku kulmeen meel dariiq ah waxay inantii ku ballamisay gurigooda ay ku noolaayeen iyadiyo hooyadeed oo suuqley ah sidii ay ballantu ahayd wuxuu ugu tagay guriga cidlo ah oo gabadha kale joogta qolka fadhiga ayay wada fadhiisteen salaan kadib wuxuu u sheegay iyo meel uu hadalka ka bilaabo ayuu garan waayay gabadhuna way ka soo jeedaa oo sheeko ayay ka sugaysaa isna waa aamusan yahay isagoo garan lahaa halka uu warka ka bilaabo ayaa gabadhii intay hadashay ku tiri aboowe maad hadashid markaas baa wuxuu sheegay intuu garan waayay wadaad buu ahaaye wacdi allah ka cabsi ayuu u jeediyey markuu wacdiga dhameeyey ayay ku tiri sheekh khayr allah ha ku siiyo waana lagu kala tegay markii uu ka baxay ayuu xanaaq cunaha isgooyey maxaa maanta gabadha aad fursadda loogaa ku heshay wacdi ugu jeedisay maxaa sidaas u dhihi weysay maxaa erayo jecel loogu sheegan weyday maxaa kugu dhacay ayuu isku canaantay war sidaasaa ku harin waa gurijoog oo meel aadamaysay bari guriga ku garaac oo gabadhu meel saar ayuu intaas iskula sheekaystay go'aanna wuxuu ku gaaray intuu bari xaafadda ugu tago isla maalintii xigtay ayuu mar labaad guriga ugu tegay oo intuu guriga ku gargaraacay oo laga furay alla fariisiiyey halkiisii lagana soo horjeestay haddana sidii oo kale ayuu hadalka ugu dhegay laakiin wuxuu ku fiicnaa mawduucii hore wuu ka leexday oo mid kale ayuu u saaray si uu wacdiga laftiisa xiise u yeesho wuxuu jeediyey wacdi quseeya cibaadada markuu dhameeyey ayay ku tiri sheekh wallaahi sheekh fiican baa tahay weligay ma arkin sheekh wanaagsan xitaa guryaha ugu tago dadka khayrkii wanaagga u sheegayo sheekh waxaan kaa codsanayaa inaad berri ii timaado si aan khayrka ugu faa'iidaysanno waayahay intuu yiri asaga oo qanacsanayn iska tagay markuu soo baxay ayuu habaar iskala daalay wuxuu qaatay buug iyo qalin wuxuuna qoray sidii uu ugu faa'iidaysan lahaa fursadda berri ah oo gabadha ugu wacday oo danta uu leeyahay ugu sheegan lahaa gabadha maanta taladiis kuma kala yeeline ee asxaab kale ay isku fiicnaayeen ayuu la tashaday markaas ayaa si fiican looga dharjiyey qaabka iyo sida uu ugu sheegan lahaa gabadha uu rabo inuu shukaansado Mustaf markan wuu dhaarsan yahay wuuna diyaarsan yahay wuxuu sameeyey dadaal badan xitaa muraayad ayuu soo hor istaagay isagoo istijaabinayo wuu soo baxay wuxuu soo aaday guriga gabadha intuu jidka soo socday wuu isla sheekaysanayay ugu dambayn guriga ayuu soo gaaray wuuna soo gargaraacay albaabka intay gabadha ka furtay ayuu qolka fadhiga soo galay mise waxaa fadhida 20 gabdhood oo ay u yeertay si ay wacdiga sheekha ula dhageystaan intay fadhiisiisay oo cabitaan ay u diyaarisay u keentay ayay ku tiri sheekh noo bilow wacdiga Mustaf naftiisa ayuu la hadlay wuxuuna ku yiri maxaan sameeyaa wixii ilaa shalay oo dhan soo diyaarinayay xalay oo dhan xijinayay meeshan kama soconayaan meesha ayuu wacdi ka jeediyey dadkii oo dhanna wacdiga way la wada maqsuudeen isagoo ka hadlaya mawduuc isaga ku cusub oo ku saabsan qaabka uu islaamka u jeediyey hannaanka shukaansiga iyo faa'iidada guurka leeyahay inkastoo uusan khasaarin 3 maalmood uun ajir kororsanayay Mustafa haddana wuxuu aaminsanaa inuu ku fashilmay shukaansigii sheekadii saas ayay noogu dhammaatay waxaan leeyahay intaana ku kulmi doono muuqaalkiisa xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh